idiin ogolin dalkan in la dulaysto waxaad u baahan tihiin marka inaad sabaabushaan haddii aad tihiin dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaad idiin sheego laba arrin oo kale annagu waddankan waxaan ka rabnaa isbeddel dhab ah isbeddel wax ka beddela dhaqaalaha isbeddel wax ka beddela amniga isbeddel wax ka beddela awood qaybsiga isbeddel wax ka beddela mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ma rabno kuraas isbeddelaysa laakiin waxaan rabnaa waxqabad dhab ah annagu waxaan raadinayna waxa ay tahay dal amni ah garsoor daacad ah ummad wada jirta iyo dawlad isku filan ciddii rabta marka inaan gaajada ka baxno ciddii rabta inaan soo celinno xorriyaddeena iyo sharafteenna ciddii rabta inaan qabyaaladda ku beddelno qarabnimo iyo sharaf ciddii rabta inaan xanuun u adkaysanno sanad ama 2 sano laakiin aan dhisanno jidadkaas iyo sarahaas oo kale ciddii rabta inay tiraahdo awoodda Soomaaliyeed waxaa iskala shacabka Soomaaliyeed ma aqbalayno dalaaliin ku kala dhigirta shacabka iyo dawladda ciddii intaas diyaar u ah doonaysa waxaad haysataa saaxiib la yiraahdo farmaajo khayr ciddii doonaysa in qabyaalada waddanka lagu dhaqo in dawlad walba la dumiyo in musuqmaasuqa lagu soo celiyo in xoolaha waddanka qolo yar ay haysato waxaad saaxiib la tahay 27 sano la soo dhaafay yaan laydin sirin marka waxa laga hadlaayo ma aha xasan khayre iyo madaxweyne farmaajo waxa laga hadlaayo waa dalka Soomaaliyeed waxa laga hadlaayo waa ummadda Soomaaliyeed waxa laga hadlaayo waa mustaqbalkiina ama gurihiina ku jira ee sidii hore ahaada ama fursadaad haysataan kaalay dawladnimada nala dhisa waa maatantii